عمر فينيش وكجفت قدوميها قبلك أنا أسأل دنا هوستك وعدني ما هوستكنا. السلام عليكم أسعد ملك ذاك الجوكتي الديد وسعيد كي جران ناني فضل هذا كسبت يوتيوب جرا كي سبسكرايب لايك أوكي هنقول قال ما تمحنوا هايا بنامبح تيم أو بنامبح أو حق هذا روين نحصدان سان بليين وضدي ويببروسان تهاي وضدي ويجا جبتي وضدي داد باقاضي عرورت حاجة أسكول كوديجتو sometimes ما سو مر كران waxaa laga cabsoo daad inuu qaado marka dawladda maxaa weydiiya maamada masaakiinta oo laamiga geeskeeda nyaanyada ku gadeeda oona guri ay ku soo dhaafatay agoonta oo subax kasta u soo mareeday meesha leediin leta pesa iyo aabaha masaakiinka oo dhabarkiis ku shaqaysto culayskaas ku qaado oo beesada leediin leta pesa yaa ininkaas masaakiinka oo dhalinyarta oo wadada ku gadaayo mooska aa leediin leta pesa dawladda xagee geyseen beesadaas shacbiga beesada bixiyaan xagee geyseen wada ma u dhisin wadada ma loo nadaafad ma ka muuqato yaa wadada jabsan tahay xoogay nagu leeyihin beesay dhiibaan bari ma jirto beesada dhiibeena maxaa waaye maxaa ku qalatiin neef ari every day حق ميتاس حق ما والله بالله كسو قربح والله بالله رمضان بالغو جيرا دره الهي كعبسوده ناف كريغا خليدين مانا خلايا اما اسكبا دافو مساكين تسو جيستا حقوده سي اي نيغو ليين come on guys توغنده اسكا دافو واكاسا عمر فينيش وكجفت قدوميها قبلك انا اسا دان هوستك وعدني ما هوستكنا دني مو دعونا marka ilaa inta saqalin wax ka qabto wala magaaladii qaar kamid ah shacabka ku nool degmada wartan nabada gaar ahaan xaafadaha Geejecel Buurinti iyo Cabdaliya Cawareer ayaa maanta isugu soo baxay xaafadahaasi kuwaasi oo ka cabanaya go'doon ay sheegeen inay ku jiraan xaafadahaasi xitaa aysan haysan meel ay la maraan meedadka waxayna cod dheer ku sheegeen inay ku dhiban yihiin xirnaashiyaha wadooyinka soo gala xaafadahaasi iyadoo ay u sii dheer tahay burbur xoog عمر فينيش عيب محليه ميدكتا meel la maro wala عيب سامع قطع مدحته ماشي عيب نوضه kan oo xilligan ka muuqanaya wadooyinkaasi oo muddo dheerna aan la dhisin nus kiiloomitir meel u jirta madaxtooyada Soomaaliya oo saan u burbursan oo aan mid laga bixin karin meedka garabka lagu qaadaa iskoolka ilmihi aadaya halkaas ku jabeen macallimiintii qaarkood waxa batay kan u kori karaan biya qaaday nus kiiloomitir inuu jirta madaxtooyada waa saddex meel oo muhiim ah waa iskoolka Tawag oo qaybta waxbarashada ah degmadii dhameed laga maamulayo dhanka ku taala masaajidkii uu weynay Soomaaliya masaajidkii labaad isbaansiga waxaan wax ku weyn male waa ku yaala masjidur rahma halkaas saddexdaas wadada saddexdaas qayb muhiim ka haysata nus kiiloomitir dirta madaxtooyada waa burbursanta kabacdina waqtigii Sheekh Shariif oo noo bixiyay warta nabadda waa iska bedeleynaa warta nabadda hadda waxa uu eegnaa oo magaca hadda aan qaadano waxay tahay warta dhiiqada hadda waa ka bixinaa wardhiigleedii hore u laabeynaa wardhiigleedii hore oo aan waagii hore ahaan jirnaa u laabeynaa haddii aan casuurteena kugu dhisin wadada oo aan wadooyinkan loo furin xabsiyaan ku jirnaa meedka garbaha ku qaadanaa wadooyinka dhan waa naga xiran yihiin marka meesha lagu oodaanahay ma nihiin shacab dawlad mataqaanaa dawlad leh ma nihiin haddii aan u ekaan weyno shacab dawlad leh oo aan jidadkana laga furi waayo warta dhiiqadana laga qaadi waayo oo nolol dhisi waayo casuurteena kugu dhisi waayo wardhiigleedii hore u laabeynaa meedkeer waxaan maraynaa canshuurisa ma dhiibeeno ku dara taase xaq baa ku leediin waagii hore jidka markuu qurux badnaa ama uu dhisnaa waxaan ka soo gali jirnay sida jid marixaan oo kale ama Faransa oo kale baabuurta noogu soo gali jireen hadda hadduu ka soo galo wax macnaa ma sameynayso ilaa meel noogu soo gudbo ma laha hadda waxaan diyaar 20 dhalinyaro xoogsata aan diyaarinay waxaan maqli jiray qolada ka shaqeysta dabdamiska macnaha shaqaalaha mar walba heegan waaye 20 kaas danka ma dhacdo markuu meel dhacaa soo boodo dhaana heerkaas aan marayna ma fahanteen marka waxaan leenahay dawladda ku bogaadinaynaa alxamdulillah maadaama qadana soo qadana ala dhib ka qaadan leeyahay heer waxaan maraynaa 20 jir 8 jir habeenka isku sii umarnaa kulli toosha xambaarsanaa marka waxaan leenahay والله نيكا رجيدا والله بالله حقي سو دعسا ساسا كارا صاحب keep going ساسا كارا
raggeed naga soo gaaraan leenahay intaasaan kusoo koobaa naga soo gaara dadkan maanta isugu soo baxay xaafado ka mid a warta nabadda ayaa maamulka degmada iyo kan gobolka ugu baaqay inay tixgeliyaan codsigooda ay tiro dhowr jeer u gudbiyeen iyagoo madaxda ugu sareysa dalkan ugu baaqay inay wax ka qabtaan xaaladda ay ku sugan yihiin. dhammaan hay-adaha waxbaxsho ama jecel inay maaragtay samafalka sameeyaan ama khayriyaadka ay sameeyaan in wadadan maaragtay naloo dhiso oo ah wada halbowlo u ah xaafadda run ahaantii muddo burbursaneed. sidoo kaleeto waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka banaadir ugu saaxiibayaal codsiga iska dhaafa xaq maxaa ku leedihiin qasab inaan ugu sameeyo wadada maxaa jiro shuris aad dhiibtina shuris fikira come on iska dhaafa tuugtaanka xoog u sheegta horeeya gudoomiyahooda Cumar Finish waxaan leenahay wadadan waa wado u baahan in loo istaago wadadan runtii waxay ka soo jeedaa wado qadiimi ah ka leedin gudoomi neef ariyo ku qashtaa beesadin kaas gudoomi ma bani qalma kaas waa halbooliye dhammaan isku xiraaya degmada iyo wadada Geejaceel waan afarta degmo magaalada Muqdisho ugu horeeday madaxtooyada ku dhex taalo raad Muqdisho ku yaalo isbartiibada ku taalo meelaha ugu caansan ku yaala tiyaatarkii maantana ma muuqato in ay tahay degmo in la isku sheegano waa fiican tahay ninka degmo Hordhigle arko degmo kale arko waxaan leeyahay in dhammaan kaas tilmaam wax ku raadshay waxaan codsanaynaa laamiga ugu muhiimsan degmo Hordhigle degmada xaafaddeena gashay la Geejaceel waa burbursanta dhibaataan ku jirnaa dadka xaafadda dhiman qof kamid markuu dhinto waxaan la aadnaa ilaa Geejaceel waxaan kula geynaa gacan taasna suurtagal ma waxaan codsanaynaa madaxda dalka iyo gudoomiyaha gobolka in oo sidoo dhaqsiya badan arrintan fiirsho anagu waxaan dad degan xaafadan una dhashay in badan deganaa awlaad ku sii dhashay haddana nahaysada daruuf oo wadada naga jabtay ayadoo aan ka baxsan karin meedkii waayeeladii ay masaajidka soo aadi jireen guriyooda ka niyeysna masaajidka dhawaaqiisa salaada kale xirtaan taraawixda wax dhiigley war nabadeed ma aqaan saacadaas laga bilaabo waxaan rabnaa in naloo dhiso jidka siday fartuun sheegtay ayaa xaq ah laakiin maadaama laamiga saaranahay milkina aanahay dowladda uma shaqeyno ma ganacsano waxba ma haysano dowladdan karabaan inoo dhisto haddaan ka weyno anaku iskaa waxu qabtaan ku dhiseynaa aan ku daadan Shabeelle TV Muqdisho. okay asxaabtu waa maqasheen baa u maleynaya xaqooda bay dhacsanaya saasaan la rabaa maasha Allah keep going xaqin dhacsada madaxda isku xishooda dadka wax u qabta way dacwadana u jeedinaya